Hadda aan isla baranno sida cuntada loo kala qaybsado. Qaybintu waa marka qayb ka mid ah shayga loo kala saaro qaybo badan iyo in la isku dayo in qayb walba laga dhigo in isleeg. Haddii la doonayo cuntadan in loo kala qaybiyo 4 qof, sidee baan u kala qaybsanaa? Waxaan haynaa 12 baradho macaan ah. Si aan ugu qaybiyo 12 xabo oo baradho macaan ah 4 qof, waa inaan 12 u qaybiyo 4 si qof walba u helo 3 xabo. haddaba 12 loo qaybiyo 4 waxay la mid tahay 3. waxaan haysanaa 8 farsuug waxaana loo qaybshay 4teena meesha joogno. mid kastoo naga mid ah 2 xabo ayuu qaatay. haddaba 8 loo qaybiyey 4 waa 2. qof kasta wuxuu helayaa 2 farsuug. markayga weeye aniga ayaa ugu fiican xisaabinta cuntada. waxaan haysanaa 7 xabo mooso. qof kasta wuxuu helayaa 1 xabo keliya ii soo haray. sidee ku dhacday arrintan? waxaan rabaa 2 xabo moos ah. Macquul maaha in 7 loo qaybiyo 4 qof. haddaysan jirin haddii aan haysano 1 xabo dheeraad ah waxaan u qaybin lahayn si cadaalad ah. nay mana sii kartaa 1 xabo moosaskaada oo maanta subaxii soo qaaday? waxaan keliya u baahanahay inaad na siiso 1 xabo moos. waxaan kuugu bedelaynaa 2 xabo moos ah. kuwaana waa mooskaadii iyo 2 farsuug iyo 3 baradho macaan. waa heshiis wanaagsan soo maaha?